السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داوديال meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni waayaha nolosha xubnaha aan idigu hayno barnaamijka waayaha nolosha ee toddobaadkana waxa kamid ah inta labaad iyo barnaamijkeena waayaha nolosha waxaan idigu haynaa maxamed muuse jaamac waa wiil dhalinyaro ah isla markaana naafa maxamed waxa uu jecel yahay inuu noqdo suxufi ama wariye waxaanu maxamed samaystay idaacad uu la magac baxay raadiyo goljanno oo aanu idiga hayno waraysi kala duwan oo aan la yeeshay maxamed muuse jaamac waraysigina wuxuu dhacay daawadayaal sida tan maxamed muuse jaamac waa wiil aad u dhalinyaro ah oo saadarkasan xagga amaba naafa maxamed bal marka hore waxaad aad u jeceshahay mihnada warbaahinta ama saxafiga aadiya goormay ku dhalatay wal horta waxay igu jiray baan u maleynayaa anoo jecel baan is arkay marka in badan waan jeclaa in hamigeyga saxaafada aan gaaro ama aan helo cidiga gacan qabata anoo waxaan is arkaa anoo mar xitaa keligii anoo fadhiyo anoo wariye ah oo hadlaya oo leh idaacadii anoo xiriirinaya anoo studio ku jira ayaan ismoodaya marmarka qaar dabadeeto adigu saxaafadana waan jeclaa inaan mar uun xitaa anoo wariye aan is arko marka waxay igu jiray walaal ilaa goormuu kugu dhashay maxamedow inaad mihnadan amaba goormuu kugu dhashay inaad noqoto suxufiga goormay kugu dhalatay suxufi mar waxa la noqdaa mar aad hawl gashid iyo mar aad adigu niyad ahaan hawl gashid horta mar hore inaan niyad ahaan hawl galo laakiin wali ma aan gaarin inaan si aan shaqadii toos u galo oo aan hawl galo marka niyad ahaan baan wali ahay ilaa imika goormay kugu dhalatay adigu 6 sano ka hor waa 6 sano ka hor marka waxaan duubi jiray cajiladaha yaryar anoo waliye iska dhigaya anoo xitaa waxaan samaystay idaacad yar la dhaho radio goljanno oo aan tafatira ka ahay anigu oo aan ka ahay farsamo yaqaan xiriiriye oo kaas marka idaacaddu waxay maqsinkaaga dhexdiisa ku samaysatay oo qolkayga sariirteeda yar bay ka ku yaalay dabadeeto magacaan la baxay marka cajiladu ay dhamaato dhinaca kale waxaan oran jiray hanaga taginina xaga kale u roga saad ula socotaan wararka iyo barnaamijyada iyo suugaanta maxamed waxaan naga yar maqashin kartaa aniga iyo dadweynaha ku daawanayaba in yar oo idaacadaadaas wax naga maqashin kartaa aad iyo aad oo hagay khiyataha wadanaga la xidhiidhay ku soo dhawaada qaybteennii labaad iyo idaacadeena fiidnimo imikiyaatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkeennii ciyaaraha kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dadka hawada naga dhagaysanaya kuna soo dhawaada barnaamijkeennii ciyaaraha qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah natiijooyinkii ugu dambeeyey ee horyaalada qaaradda Yurub sida Premier League Ingiriiska, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain iyo waliba qodobo kale oo kala gedisan barnaamijkuna waa faaqidada ciyaaraha وهكذا خيرتها ودنا قال حديدا يدي نسوق هذا النقطة كنا كوادي برنامج كنا فاقدة عيارها هوريال جودنجي سبين كوحدة كوبادة عكتا هي الماكد أي وحاي بربرلك شيء كوحدة هي السارقوسا كوحدة هي الكول كده وحاود اللي عياريهان كريستيانو رونالدو taasina waxay ku dhamaatay barbaro haliyaala ciyaar kale oo xiiso badnayd oo dhex martay kooxaha Barcelona iyo Espanyol iyaduna waxay ku soo gabagabootay 2-2 goolka koowaad ee kooxda Barcelona waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka isaguna ay ku dhaataan kooxdaasi ee Lionel Messi labaad ee kooxda Barcelona waxa uu dhaliyay
Cristiano Tello. akhyaarta wadanaga la xidhiidhaya ayaynu qodobkii labaad soo qaadano Premier Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa waxay sii dheereysatay horyaalka wadanka Ingiriiska hoggaankiisa. waxa jira imika idaacad dhageysanay caadi idaacad caadi la moodayo warkii leh oo barnaamijyadii leh oo idaacad dhameystiran la dhageysanay ya ka caawiya imika muusigan oo kale heesaha oo kale ya ka caawiya ilaa wixii waduba saay imika muusiga oo kale waxaan ka soo qaataa markii maalinta sabtida tahay oo kale ayaa fiiceed waxay soo disay muusig miiran qaybteeda Ingiriiska marka muusiga maalinta sabtida aan la eegtaa warkayga haday noqoto maantay codadkan ciyaaraha ninkan carabka ay goolasha sheegayaan moobilada ayay igu jiraan markaan soo download gareysto ayaan ku duubtaa ama anode ayaan halkii ka eegtaa goolkii ciyaartooyga dhaliyay iyo isay isugu ekaadaan wixii la waxa ciyaar bad sheegaysaa inay isu ekaadaan ciyaartooyga dhaliyay markaan hebel baa dhaliyay aan isu galiyay iyadoo wixii ay download gareysan yihiin saas baan markaa sameeyay markaa saasad ku duubtaa ها أساساً كتبه. إلا أنت بكوكا إذا عدى هذا مسك المركز دوبس. وحيد والله ويفضل ده جن كهرباء ونكون مية. مكان يروم مكان جن كهرباء إذا عدى دارته يعني أنتو هذا وحيد لو ساعد هذا كذا. إذا عدى هذا المكان واحد لما أو هذا ما قعدت تقول شنو هذا قلت شنو. ها. إلا أنت أي كنت ساعد أنت كنت تما بربع مساعد بع مروع بع ملاو. وحي والله وحي كنت أنت عن شرط قارس. هذه أي كسي بدن لا المال غير عن كتب لها ونصيب لها لكن عن شرط أنت يسامح يسوون بدعتي ذا اللي جسنا كذا. المركز إذا عدى علينا سمح محمد. حول بدن بيوبا هنتهي. markaad xiriirina soo kale bal adiga waxaad ka soo qaadaa dadweynaha ka soo qaadaa dadku daawanaya iyo daawadayaashadaba adiga idaacadii ku guda jira oo xiriirinaya bal iyo naga maqashay waxaan oranayaa markaan idaacadii soo galiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khiyaartaa wadanaga la xidhiidhay ku soo dhawaada idaacadiyadii fiidnimo saacada Afrikada bari waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah suugaan waraysiyo iyo warbixino aan idiin soo gudbin doono marka hore aynu ku furanno aayadka Quraanka Kariimka saas markaan dhaho haddana waan ka jaraya ka jeer baan sinayay aan lay dareeminana waxaan duubay oo kale dabadeetna muusigiyada marka heesta muusiginta ka soo qaato ayaan ku daraya si idaacad caadiga loo moodo dabadeetna markaasaan haddaan heesu soo deynayana dhextaal uga dhigaya haddaan wareysiyo xiiso badan oo idaacadaha VOA oo kale iyo radio Hargeysa ee kale BBC oo kale ayaan dhextaal uga soo dhiganaya idaacadayda waxa ugu weynaan weydiisanaya waxa weeye inaan la hawlgeliyo aan meel ka shaqeeyo haday TV noqoto haday idaacad noqoto iyo haday jaraad iyo website ba noqoto oo aan warbixin u duubi karo haday tahay barnaamijyada entertainment-iga madadaalada haddaan warkaan soo jeedin karo waraysiyada aan qaadi karo marka in la hawlgeliyo baa ay dhiman sideeda kale nin diyaarsan baan maxamed haddana kamid ahno dadka imka hadii codkaaga la tuso saad wax u xiriirinaysa la tuso dadku waxay malaysanayaan qof wariyo oo meel jooga markaad idaacadaada wali ma jira cid dhageysatay oo aad u gudbisay markii hore aniga ayaa waxaan samaysan jiray suuq geyn canjaladaha inta duubay ilaa 10 canjaladood oo yar yar baan duubay kuwii hore recordkan ayaa recordka la geliya ayaan duubay Aleer Cabdiraxmaan oo kala kamid ah aan dhiibay dhowr canjaladood qaar kale oo aan inamaan saaxiibna ku yiri war bal meelaha hada shaqay iga raadinaysaan oo dhiibay canjaladaha marka dadku waliya caadiga horta marka dad badan baa igu yiri dafiray war ma ninkani Maxamed Muuse oo ilaa markii dadkii dhahan magacayga markaan ku soo daray meesha oo liiday aan leeyahay idaacad markaan xiriirinayo Maxamed Muuse jaamac Allah gartay markii dhahan wallahi wad ku fiicnaan leed qaar badan bad dhaantaa ku kaftameen ma dadka qaarba Itaaliyo hawd loo damiyo dadka qaarba Itaaliyo hawd loo damiyo ifilo haleeshi walaga dooray maha dadka qaarba Itaaliyo hawd loo damiyo dadka qaarba Itaaliyo hawd loo damiyo ifilo haleeshi walaga dooray maha مقلقا إلاشا قارنين وحوريان يا روض تلاقلي أدي ماذا كوان هين أرك لقا أصير
hagaag daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkeennii waayaha nolosha oo idinla socodsiiyay anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena barnaamijka mid lamida intaan ku kulmi doonaan iyo dhammaanba asxaabtii kale igala qayb qaadatay waxaan idiga tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu